qabuurta magaalada Muqdisho intaan sharci la samayn oo shamiteer la diyaarin dadku kontomkii ilaa wixii kasii horeeyay dadka magaalada deganay qolo kastaba meel isku duugi jirtay barkee dadka magaalada barigaas ku noolayna waxay ahaayeen Talyaani iyo Carab iyo Hindi iyo Soomaali ay ahaayeen afarta shan todobada xaafadood oo markaas xamar ka koobnay todobadaas ay isla wada deganayeen kulligood inkastoo carabtu ay meel gaar ah deganeedo xaafad ayaga iska leeyihiin oo la jira village arabo la dhihi jiray laakiin hadda shibis la yiraahdo ayaga iska leh xaafadaas u badnaay laakiin magaalada inteeda kale waa la kaay xamar weyne dhaxdiisana Talyaaniga iyo Hindiga wax ka deganay ma intuna waa dhima jireen marka Soomaalida bal midal dadka boondheer ku dhinto waxaa lagu duugi jiray meesha xaafadan nasiib wadadan la yiraahdo nasiibundo xaafada kooseedo nasiibundo la yiraahdo degmada boondheere ilaa laamiga inta ka dhaxayda oo ilaa ceel oo muddo ka sokayso intaas dadka boondheer ku dhinta lagu duugi jiray dadka ku dhinta meesha la yiraahdo xamar weyne iyo shangaanina waxaa lagu duugi jiray laga soo bilaabo Sheekh Suufi ilaa hoosaa loo dejihay safaaradda Jarmalka dhabarkeeda godka jilacow sukadiisa qabuurta ku al jirtay iskoolkan la dhihi jiray kacaanka qabuuru wada ahay sidaas u socday ilaa wuxuu tagay safaaradda Ingiriiska hoosteeda saas dhulkaas oo dhan wada qabri ahay oo ka bilaw Sheekh Suufi ka bilaw ilaa waxaad ku geynaysaa meesha muxuu ahay isku boondheer agtiisa meel ah oo ku aylo masaajida ku yaal Sheekh magaciisa iska dhusheeyay Sheekh caanaha meesha ku doogan oo qabriga dhulkaas ayaa dadka reer xamar weyne iyo shangaan ku duugi jireen buur karoole iyo buule eelay ayagana waxay wax ku duugi jireen beerta daraawiishta ka bilaw ilaa raadiyo marino ama meesha dacaga dhiig Soomaalida u taqaano ex raadiyo marino la dhihi jiray beerta daraawiishta ka bilaw ilaa raadiyo marino saf ballaaran saasa dadkaasuna meeshaas ku duuga jireen wardhigliyan guurno marka markaan guurno wardhigli saddex qaybood ahayd qaybta la yiraahdo buurindi qaybta buurindi la yiraahdo waxay ku duuga jireen xertan Sheekh Maxamed Faarax dhinaceedan qorax ku dhac xawaalo odayaalay dhihi jireen meeshaasay ku duuga jireen dadka qoladan barxadda wardhigley iyo xaafadda la dhihi jiray buula arundo ilaa barxadda wardhigley ilaa zoonahaas mataqaanaa ilaa ceel gadiid dadkaasuna waxay ku duuga jireen meeshaan waad aragteen hadda masaajidkan ku yaalo Sheekh Cumar Yara la yiraahdaa dhabaan iskoolkan jidkan Maxamed Xarbadaad qaado meel jidka dhinaca bidixda ka qabanayo masaajid weyn oo ku yaalo qabuur ku agtaalo qabuurtaas ka bilaw ilaa isbitaalka la yiraahdo waxa way Al Jazeera inta ka dhaxaydo qabuuray ahayd dadkaas wardhigley qaybtaas ku duuga jirtay qaybtan kale oo dhinacan kala jirto Shilanta iyo Siinay iyo ayagana waxay ku duuga jireen masaajidka Macallin Bilaaw agtiisa meel ah qabuuraha meeshaas qabuuraha Kenya inta markii dambe isbartiiba ka sameeyay guriga laga dhisay hadda xoogaa dhil hawlay qabuurti wax ku dambeeya hadda wax yar lagu duuga bilaaja arabo waxay wax ku duuga jirtay bacadkii wardhigley dhulkan bacad u ahay kulligiis bacad weyn oo ku yiilay muxuu ahay masaajidkan Sheekh Abuukar markii sidaan xoogaa laga soo aado qorax ku dhac laga soo aado ay ku aali jireen qabuur fara badan carabta bilaaja ku duuga jirtay dadkaas magaalada degan masaas ugu duuga jireen shangaani laftirkeeda shangaani waxay ku duugi jireen meeshaan Sokonda Liido ku taalo oo la yiraahdo Sheekh Weyna ku duugan oo magac leh Sokonda Liido ku taalo oo waaxda dadka أو فيج عنا قرف دين عيدا يكون ده فيج اللي ماشي دقيقين دين عيدا كيلو أو كحكتو دكتة حكتو دكتة هرو حكتو الكاسي رشجاني نكدو جرين وهذا هري مركا دتك أجنبي هاي سيده هندي إيو تلياني وهو كدو جري مساجد كان اسمه سيج إسلام كماشة أو كفديو مساجد كاس وتلياني كدو جري هندي قلنا لبنو عي هايين بدنا مسلم وهاي
oo hindida muslimta ah oo ahay meel la yidhaahdo ceel hindi oo ku taalo markii sayidka wax yar jidkan hadda howlwadaag aadaya markaad ku dega rabto afka hore markaad joogto meel sidaas kuugu muuqato howlwadaagka isku muuqo geeda waaweyn ka baxayaan gidaar weynna ku oodan yahay meeshaasaa qabuuraha hindi ceel biyo macaana waa ku yeelo biyo hindi la dhihi jiro magaalada biyaheeda waa la naadi jira dameera inta lagu qaata la naadaay ikeen saasaa dalabkaasaa jiri jira marka hindida muslimkaa waxaa lagu duugi jiray meeshaas qabuuraha hindigaa la dhihi jiray hindida oo singaha ayagana meeshaan la yidhaahdo meeshaan dekadu hadda ka dhisan tahay saldhi xere militariya ku laga dhiga markii dambe oo la dhihi jiray raag la dhihi jiray xere military oo raag la dhihi jiray ku tiilay raagaas dhabarkeeda meesha dhabarkeeda iyo iskoolkan yaardameli meesha ku dhisan yahay meeshaasaa inta la geeyaa hindida singaha lagu gubi jiray meeshaasaa inta loo qaata lagu gubi jiray waa soo aad anagoo ciyaal yaryaraan soo aadi jirna asaan ka fiirsan jirna markay soo shidayo lacayo oo marka dambe inta qarqarxo ay markuu qarxay wada ooyayaan markaas aan arki jirin qabuuruhu sidaasay ahaayeen ilaa laga sameeyey marka waxaa la sameeyey 1959 la yiri saan anfici mayse magaaladan wada qabrin ahaa mayse qabuuraha meelaha loo cayimo 3 cemetery la sameeyo cemetery numero 1 iyo numero 2 iyo numero 3 cemetery numero 1 waxaa laga dhigay xaafadan la yiraahdo Casa Popolare iyo masaajidka Shacal Zuufi ilaa guryaha bangiyada ilaa bakaaraha ku dhawaadkeeda dhul weyn inta la ooday silk lagu ooday meeshaasaa la yiri cemetery numero 1 cemetery kalena midkaan hadda wardhigley ku yaalo waayo guryahan xamar bila laga dhisay cemetery numero 2 waa la yiri kii labaad laga dhigay yaaqshiidna cemetery kale laga calaameeyay oo cemetery numero 3 saddex markii la calaamay kaas numero 1 hal qof lagu duugay markaas la yiri stop ka daayay ma dambiyaan lagu duugin kan laga daayo markii magaaladii yaa kortay oo cemetery afkiisa ay tagtay magaaladii maadaama magaalada halkaas tagtay kan ka daaya kan aan wax ku kormayni hala dego kana loo soo wareegay kaas isla 61 guryahan la yiraahdo Casa Popolare guryahaas laga dhisay dawladda ka dhistay shaqaalaha dawladda la dejiyay marka niman shaqaalaha dawladda la dejiyay iyaga iskaga nool jar Casa Popolare la jir dhulkan ka dambeeyo dhan kadib dhulka dambo dhan inta la cabiray cemetery dhaxdiisii inta la cabiray dadweynaha la siiyey dadweynaha loo qaybshay kaas ugu baaba'ay moogtaa kan shaqadii oo bilaabay ilaa oo ka buuxsamo waa wadiyo hawsha waxaa ku darmay qayb ka dambayso asaga ka dambayso cemetery kala noqoto 70kii cudur la yiraahdo koleere dalka soo galay daacun koleerahaasaa dalka inta soo galay wuxuu ka dhigay dadkii xasuuq u geystay markaasaa iyadoo haddana xilligaas duugistii kacaankii dalka qabsaday duugista qabiilka hala duuga la yiri markaasaa dad inta wax soo karfaneeyeen ay soo qaadeen ay god qodeen ay ku duugeen qabiilan duugnay yireen annagu reewriyaan ahayne ma aanan duugin nin weyn anta soo sameynay aan meesha barxadda la keenay ninkii oo saas u doono gar weyn leh aan benziin inta ku shubnay aan gabriid ku darnay waa holcay waxaa noo yimid maxamed cumar jees iyo salaad gabeerekeedii labadaas niman noo yimideen oo golihii sare urda ka socdeen markaasay markii la riday xabada ku dhufteen ayaguna xabadii ku rideen berigaasaan saasay waa 60 iyo waa 71 waay markaas markii qabiilka la duugay daacuunkaasaa inta yimid dadkii waxaa la dejiyey meeshaan taqaanaa oo ay munajibiyadu ka dhigatay gaadiidka munajibiya lagu xareyn jirayoo ifka xalan sidaan ugu soo aadan xeradaas ifka xalan sidaan dowladda hoose ay leedahay meel dhinaceeda ahaa waxaa laga dhigay xerada karantiilka dadka magaalada laga qaado meeshaasaa la geeyaa kii dhinto meeshaan cemeteryka gadaashiisa meel ahaa la keenaasaa lagu duugaa dambasaa lagu shubaa cemeteryka uu ku dhegan yahay laakiin dhulka xagga ka jiro iska banaanay lagu duugduuga oo hadda jidkan mataqaanaa garoonkan gooh iyo garoon baar la dhihi jiraa meesha ku yiilo jidkan
maaragtay weyn oo soddonka ah meeshuu maro oo shamiteerka dhabarka ka maro jidkaas ilaa shamiteerka inta ka dhexayda dadkaas buu duugo dadkii koleeraha baabaash shamiteerkaasna waa soo intaas markii lagu kala qabuurtu intaas ku ekaatay aaska intaas ku ekaaday